iskaadi baan soo dhawaad microphone muddo soo dhawaad dhibaatana وإذا قيل لهم مرك لو يراهدو لا تفسدوا فساديننا في الأرض دولك قالوا waxay yiraahdaan inama anagu nahnu muslihun waxbaanu hagaajinaynaa waxba ma xumaynayno waa sifaadkii munaafiqiinta marka lagu yiraahdo dhulka fasaadinina oo ma aragtay gaalnimada ka daaya islaamka aad hor istaagaysaan joojiya qaaluu waxay oranayaan inama anagu نحن مصلحون ونهجاتنا واحفظ هذا موضنا ألا هوي أجادا إنهم إيجو هم المفسدون وأكو دولك فسادية يجا دولك فسادية بالله سبحانه وتعالى ولكن حصاها لا يشعرون مضر السناء إني وحفظ هذين ويسلس حسيه كالمدى ألا وحل هذا للتنبيه وبراروتين وي marka wax la baraarujinay wadaadadii hore xirtu xooran jireen ala hooyo ay oran jireen marka ma garanayo hooyo waxay ka macnata laakiin ala waa soo jeesta way ala hooy innahum yagu humul mufsiduna wa kuwa dhulka fasahadinaya walakin la yash'uruna ma dareensana wa idha qila lahum marka lagu yiraahdo aaminu rumeeya oo diinta qaata kama aamana siday u rumeeyeen annaasu saxaabada rasuulku annaasu halka waxa laga wadaa asxaabu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saxaabadu siday islaamka u qaateen iyo iimaanka si lamida u rumeeya diinta marka lagu yiraahdo qaaluu waxay oranayaan anu'minu ma waxaan u rumeynaa kama aamana siday u rumeeyeen as-sufahaa'u kuwa maangaabka ma siday diinta u qaateen kuwa maangaabka juhaasha ma sidaas oo kale anaguna u rumeynayna ala hoy ogaada innahum iyagu hum sufahaa'u iyaga maangaaba oo juhaala iyaga juhaala buu ilaahay ee saxaabada rasuulka juhaal maaha walaakin hasaahate laa yaclamuuna ma oga isma oga inay sufaha yihiin markaa waxay yasayaan saxaabada nabiga ay yasayaan calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin ma sida dadka sufahadii ay u rumeeyeen ma si lamidaan u rumeynaa diinta ilaahay wuxuu yidhi alaa hooy waxaad ogaataan innahum iyagu hum sufahaa'u iyaga maangaaba walaakin hase ahaatee laa yaclamuuna isma oga way isla saxsay ma oga wa idaa laquu markay la kulmaan aladiina aamanuu muuminiinta markay la kulmaan saxaabada la kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay diintaanu qaadan muuminiin baanu nahay idila mid baanu nahay saasay odhanayaan markay saxaabada la kulmaan iyo muuminiinta wa idaa khalow markay dib ugu laabtaan khalow rajacuu markay dib ugu laabtaan ilaa shayaadiinihim madaxdooda iyo cuqaashooda iyo salaadiintooda ay ka amar qaataan markay dib ugu laabtaan ilaahay madaxda wuxuu ku tilmaamay shayaadiin buu ku tilmaamay waa madaxda xunde marka ilaahay wuxuu leeyahay cuqaashooda iyo salaadiintooda oo shayaadiina ilaa iyagaa maskaxda ka haysta moogta caqliga ay ku fikiri lahaayeen iyagaa maskaxda ka haysta waxaanay kaga haystaan berigaa hore waxay adeegsan jireen waa qabiilka lagaa saaraya haddaad diinta ka baxdo quraysh ma tihid reer bani haashim ma tihid saasay ku odhanayaan waa laga saari jira qofka weliba markaasay dili jireen oo ciqaabi jireen markaa ilaah wuxu uhi waidaa khalow markay dib ugu laabtaan ilaa shayaadiinihim madaxdooda shayaadiinta qaaluu waxay ku odhanayaan innaa macakum idinkaanu idila jirnaa fidiin diintaad haysataan baanu haysanaa innamaa naxnu annagu waxaanu ahaynun mustahzi'uuna qaar ku dheeldheelaya saxaabada yacni markii aanu iimaanka u sheeganay saxaabada aanu la joognay waxay naga ahayd dheeldheel bay naga ahayd iyagaanu ku ciyaarayn laakiin imanka markaanu idinka idin niman annagu diintii un baan weli haysanaa ismaanaan bedelin saasay ku odhanayaan innaa macakum idinkaan idila jirna waa munaafiqiinta innamaa naxnu mustahzi'uun saxaabada markaanu iimaanka u sheeganay waanu ku ciyaaraynay dheeldheel bay naga ahayd marka eeg markay saxaabada u yimaadaan maxay muujisanayaan
iimaan markay ku laabtaan shayaadiintoodii iyo madaxdoodii iyo gaaladana waxay muujisanayaan oy sheeganayaan gaalnimada iyo nifaaqii caloosha ku jirta allaahu ilaahay yastahzi'u bihim wuu ka abaal marin doonaa waxay sameeyeen yastahzi'u bihim dheeldheelka iyo maaragtay yasitaanka iyo sayaan saxaabada waa lagu abaalmarin doonaa waana lagaga abaalmarin doonaa laakiin ilaahay laguma tilmaami karo sifada iyo tilmaamta dheeldheelka waayo waa sifo negatifa laakiin halkan waa in la awilo ahlu sunna waljamaca waa in la awilo marka maxaa lagu awilayaa waxaa la odhanaya waxaa laga wadaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka abaal marin doonaa dheeldheelka iyo ciyaarta iyo istihzaaga ay sameeyeen waa laga abaal marin doonaa laakiin dee ilaahay dadka kuma dheeldheelo marka haddaad tidhaha allahu yastahziu ilaahay wuu ku dheeldheeli doonaa bihim yaga waa sifo negatifa laakiin waxa weeye waa laga abaal marin doonaa dheeldheelka iyo ciyaartay ku sameynayaan saxaabada ay ku sameynayaan iyo dadka mu'miniinta wayamuduhum waxaa loo dheerayn doonaa fii duqyaanihim gaalnimaday ku jiraan iyo qooqa ay ku jiraan waa loo sii sayto dheerayn doonaa yacmahuuna ha ku dhex dawaqsanaadaan oo ha ku wareersanaadaan gaalnimadaas waa loo sii dheeraynaya yacmahuun bitajaawusihim alxad bilkufr waayo gaalnimada meel xun bay ka gaadheen sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala ugu sii sayto dheereeyey yacmahuuna iyagoo indhala oo dawaqsan oo ku wareersan gaalnimada oo maaragtay shaki ku jiro shaki baa ku jira gaalnimo saxana may qaadan oo badrheedha oo waa kuwan iimaanka muujisanaya muslimiin iyo mu'miniin dhabana maaha markaa maxay ku jiraan waa yacmahuun way wareersan yihin gaalnimadaa iyo nifaaqaasay ku dhex wareersan yihin waana loo seeto dheeraynaya ilahi wuxu uhi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa ishtaraw ku bedeshay addalaalata baadida waxay ku bedesheen bilhudaa hanuunkii bay ku bedesheen iyo wanaaggii ayay ku iibsadeen ishtiraa waxaa la yidhaha waa iibsiga laakiin ujeeddada laga wada waxa weye waxay ku bedesheen baadidii ayay ka door bideen wanaaggii iyo hanuunkii famaa rabixat kamay macaashin tijaaratuhum ganacsigoogii muu macaashin bedelaashay ku bedesheen baadiday wanaagga ku bedesheen kamay macaashin famaa rabixat may macaashin tijaaratuhum ganacsigooga wamaa kaanuu muhtadiin manaanay hanuunin buu ilaahay yihi subxaana wa tacaala oo xaqa kumay hanuunin sababtu waxa weeye maadaamaanay hanuunin oonay xaqa ku hanuunin inay baadida ku bedeshaan wanaagga iyo hanuunka kamay faa'iidin buu ilaahay yihi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu tusaale ka bixinayaa dadka munaafiqiinta ah iyo qaabkay yihiin ilaahay wuxuu uhi mathaluhum tusaalahoogu nimankaa munaafiqiinta ah ka mathali waa sida alladii qofka istawqada shitay naaran dab shitay si uu iftiinsado iftiin u noqdo mathaluhum tusaalahoogu waxa weeye waa ka mathali ladii waa sidii kii istawqada shitay naaran dab shitay dabka ujeeddu u shitay waa qof meel bana oo cidlo a jooga oo habeen qudcura oo madowa ayuu meel bana jooga oo bahalgaleena oo duurgaleenkii jooga oo bahladii joogaan iftiinna ma haysto dab buu shitay dabkaa wuxuu ka rabaa inuu iftiinna u noqdo uu iftiinsado inuu dhaxanta ka dugsado iyo inuu cabsida haysatee bahlaha ka haysatana uu ka nabad galo ayuu dabkaa u shitay markaasuu istawqada wuxuu shitay naaran dab falamaa adaat markii dabkii uu iftiimay maa xowlahu dhinacyadiisa ay iftiimeen oo mugdigii uu ka baxay ee uu ka ammaan helay bahalladii mugdigiina uu meesha ka baxay ee uu iftiime hareerihiisa iftiimeen dahaba allaahu ilaahayna iyaga uu ka kaxeeyey munaafiqiinta binuurihim iftiinkoogii waa laga kaxeeyey waa laga damiyey wa tarakahum ilaahay wuxuu kaga tegey fii dulumaatin qudcuro iyo mugdi laa yubsiruun oonay waxba arkaynin xaqa aanay arkayn markaa tusaale waxa weeye ninkaasi markuu dabka shitay ee dabkii ka damay maxaa dib ugu soo laabanaya dhaxantii haysay
cabsidii ka haysay bahallada iyo qudcurkii iyo mugdigii ayaa dib ugu soo laabanaya. ilahay wuxuu leey munaafiqiintuna waa sidaas oo kale, markay iimaanka muujistaan ay muuminiinta la joogaan iftiin yar bay helaan, iftiin yaroo ku hareeraysan ayay helaan. mar alaaliya laakiin markay dib u laabtaana mugdigii iyo qudcurkii ayay dib ugu laabtaan. sidoo kale ilaahay tusaaleha wuxuu u keenayaa adduunka intay ku nool yihiin, maadaama islaamnimo iyo iimaan muujisanayaan, iftiin yar bay haystaan, iftiin yaroo ku hareeraysan. laakiin markay dhintaan ilaahay wuxuu kaga tegayaa dahaba allahu binuurihim, iftiinkii waa laga qaadaya, intii yare iimaannimadii muujisanayeen waa laga qaadaya. waxaanu ilaahay kaga tegayaa fii dulumaatin qudcur, waa qabrigii mugdi ayay ku jirayaan, laa yubsiruun, waxba ma arkayaan. maalinta yowmalqiyaamahana waxay la kulmayaan qudcur iyo mugdi iyo naartii oo ku hareeraysan iyo cabsidii, wixiiba way ku soo laabanayaan. marka taasay ku dambeynayaan. marka iftiin ka yaray haystaan adduunkee ay islaamnimada muujisanayaan, maalinta yowmalqiyaamaha waxba uma tarayso. waxay la kulmi doonaan qudcur iyo mugdi oonay waxba arkayn, oo cadaabku uu ku hareeraysan yahay iyo naartu, halkaasay ku dambeynayaan. ilaahay subxaana wa tacaala iyaga ayuu sii tilmaamayaa munaafiqiinta. ilaahay wuxuu ihi summun way dhagalaayiin, dhagaha oodan, summun can ilxaq falaa yasmacuunahu simaaca qabuul, xaqa way ka dhagalaayiin, mana aqbalayaan. xitaa hadday dhegaystaan ma aqbalayaan xaqi. cumyun way indhalaayiin oo xaqa ma arkayaan. bukmun way afxidhan yihiin oo wanaagga iyo khayrka kuma hadlaan, oo wanaagga iyo khayrka iyo islaamnimada way ka afxidhan yihiin. summun way dhagalaayiin, bukmun marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay 3 tilmaamood oo khatara, inay dhagalaa yihiin, indhalaa yihiin, oo ay afkana ka xidhan yihiin. bukmun waa afka ayay ka xidhan yihiin, khayrka kuma hadlaan. cumyun way indhalaayiin oo xaqa iyo dariiqa wanaagga ma arkaan. fahum laa yarjicuun, baadilka iyo baadiday ku sugan yihiin dib ugama soo laabanayaan. aw ama tusaalaha labaadee nimankaa lagu tusaaleyn karaa waxay tahay buu ilaahay yidhi, aw ama tusaalaha labaad waxa weeye ee munaafiqiinta lagu tusaaleyn karaa, kasayibin waa sidii roob, min asamaa'i daruuraha ka yimi, fiihi daruuraha waxaa la socda buu ilaahay yidhi dulumaatun, mugdi iyo qudcuro ayaa daruuraha ku dhex jira. markaa ilahay wuxu uhi tusaalaha labaadee nimankaa lagu sifeyn karaa waxay tahay, waa sidii roob ka yimi samada. samada waxaa laga wadaa asaxaab, daruuraha laga wadaa. ila biyuhu waxay ka yimaadeen daruuraha, meel ka sarraysa kama yimaadaan. marka qur-aanku hadduu samada sheego badanka, marka laga hadlayo roobka, samada markuu qur-aanku sheego wuxuu ka wadaa daruuraha. waa sidii roob ka yimi daruuraha. daruurahana waxaa ku dhex jira buu ilaahay yidhi dulumaatun qudcuro. waad aragteen cirku markuu xidhmo ee daruuruhu xidhaan, ee habeen qudcuro tahay, ee cirku madoobaado, mahiigaankuna da'ayo, ee roobku da'ayo, dulumaatun. qudcurkaas iyo mugdiga iyo daruuraha iyo roobka mahiigaankee socda waxa la socda waracdun, waxaa la socda danam, codka danamka ee uu roobku leeyahay ee cabsida badan. waa barqun iyo hilaac, waa danam iyo hilaac oo iftiimaya oo isaguna cabsi badan, iyo codkaa danamka ayaa la socda buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. yajcaluuna waxay geliyaan asaabicahum, farahooga waxay geliyaan, fii aadaanihim, dhegahay iska geliyaan faraha, iyagoo ka cabsanaya min asawaaciqi, danabyada iyagoo ka cabsanaya, xadara almowt, oo ka digtoonaanaya geerida inay dhintaan ayay ka cabsanayaan, danabyadaa dhacaya. sidaas oo kale ilaahay wuxuu ku tusaaleynayaa dadka munaafiqiinta. dadka munaafiqiinta ilaahay wuxuu leeyahy marka qur-aanku soo dego, qur-aanku waa sida roobka oo kale, ee maqlaan qur-aanka, gaalnimadii iyo maaragtay munaafiqnimadii ku dhex jirtay waxay ka dhigan tahay
roobkaa da-ya ee mugdiga iyo qudcurka wata iyo maaragtay hilaaca iyo danamka wata saas oo kale wey gaalnimada ku dhex jirtaa mar alaali markay qur-aanka maqlaana farahay dhegaha gelinayaan si aanay u maqal qur-aanka iyagoo ka cabsanaya inay u leexdaan xagga iimaanka iyo islaamnimada u leexdaan iyagoo ka baqanaya marka ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegayaa uu ku tilmaamayaa inuu qur-aanku wato aayado badan oo xaqa caddaynaya marka culimmadu waxay idhaahdeen gaalnimada ilaahay wuxuu ku shabahay waa roobkaa qudcurka wata goodinta loo goodiyena waxaa lagu shabahay racdiga danabka lagu shabahay iyo codka qaylada qur-aanka xujooyinkiisa iyo caddayntiisa uu caddaynayo shubahaadka iyo gaalnimada ay ku sugan yihiinna ilaahay wuxuu ku shabahay hilaaca iyo iftiinka ayuu ku shabahay siduu xaqa ugu caddaynayo markaa waa tusaale markaa si aanay xaqa u maqal ayay dhegaha faraha geliyaan si aanay xaqa u maqal oonay uga tegin diintooda laakiin ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala wallaahu ilaahay muxiitun wuu koobay oo wuu ka warhayaa oo aqoon buu leeyay oo wuu awoodaa bilkaafiriina gaalada ilaahay wuu ka warhayaa waanu koobay wallaahu ilaahay muxiitun wuu koobay bilkaafiriina gaalada aqoon buu ku koobay iyo cilmi yakaadu lbarqu wuxuu awoodaa hilaacu albarqu hilaacu wuxuu awoodaa yakhdafu inuu dhufto oo uu ka soo rido absaarahum indhahooga inuu ka soo rido qur-aankuna waa sidaas oo kale wuxuu awoodaa qur-aanku inuu indhaha tiro sidaa uu maaragtay hilaacu u awoodo inuu indhaha ka rido iyaga yakaad wuxuu awoodaa uu ku dhowaaday albarqu hilaacu yakhdafu inuu ka soo rido absaarahum aragtidooda iyo indhahooga uu indho tiro kulamaa adaa lahum mar kastoo uu iftiimo hilaacu oo roobku u iftiimo mashow fiih way yaro dhaqaaqayaan oo way soconayaan iyagoo ka faa'iidaysanaya iftiinka hilaaca ayay dhaqaaqayaan wa idaa adlama calayhim marka hilaacu istaagay iftiinku istaagana qaamuu way istaagayaan iyaguna ila meel ay u socon karaan ma leh waayo cirkiibaa is haysta dhulkiibaa is haysta waa qudcur waa mugdi waa habeen roob baa da-aya waxaa socda hilaac iyo danab ayaa socda marka ilaah wuxuu leeyahy marka hilaacu iftiimo way ka yaro faa'iidaysanayaan oo way dhaqaaqayaan oo socodkay sii wadayaan marka iftiinka istaaga hilaaca roobkuna way istaagayaan marka ilaah wuxuu leeyahy waa sidaas oo kale marka qur-aanku soo dego ee qur-aanka maqlaan ee xaqa fahmaan iimaankay u yaro dhaqaaqayaan xagga iimaanka ayay u dhaqaaqayaan sida hilaac oo kale markay dhaqaaqaan marka ay arkaan inay iimaankii kusii dhowaadeenna way istaagayaan gaalnimadii way ku istaagayaan halkii gaalnimada ayay ku istaagayaan ma dhaqaaqayaan macnaha gaalnimadoodii bay baaqi kusii hadhayaan markaa tusaalaha saasaa laga wada walow shaa allahu hadduu ilaahay doono wuu awoodi karaa ilaahay la dahaba inuu ka qaado bisamcihim maqalka wa absaarihim iyo aragtida siduu ilaahay uga qaaday maqalka iyo aragtida dhabta ah ee gudaha ku jira qalbiga ilaahay wuxuu awood u leeyahy inuu aragtidan muuqata iyo maqalkan muuqdaba uu ka qaado labadaba laakiin ilaahay waa ghafuuru raxiim waa naxariis badane marka ilaahay wuu u daayay adduunka laakiin ilaahay wuu awoodaa inuu maqal tiro uu aragti tiro ina allaha ilaahay calaa kulli shayin wax kasta qadiirun uu awoodaa ilaahay wax walba uu awooda ilaahay awooddiisu ma laha limit iyo tilmaamihiisoo dhan ilaahay ma laha limit wax kasta uu awooda yaa ayuha annaasu dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda si dhaba alladii ilaaha khalaqakum idi abuuray idinkoon jirin waaladiina min qablikum iyo idinka kuwii idinka horreeyeyba ilaaha abuuray iyagoon jirin lacallakum tattaquun waxaa xaqiiqo ah inaad ilaahay subxaana wa tacaala u soo laabataan ood ilaahay ka cabsataan ood amarkiisa qaadataan wixii idinka reeban aad ka tagtaan marka kelmadda lacalla luqadda carabida waa litaraji waa markaad wax rajaynayso lacalla haddii waxaa sidaa lagaa dhigo maxaa samayn lahayd waa rajo laakiin ilaahay hadalkiisa marka la isticmaalayo dhinaca ilaahay waxay yidhahdeen culimmada waa litaxqiiq waa dhab weeye waa wax dhacaya maaha wax labaclabaca ku jiro
marka ilahay wuxuu leeyahy waxa dhaba lacalakum inaad ilaahay ka cabsataan haddii aad ilaahay si dhaba u caabudaan alladii allaha jacala lakum idinka dhigay alarda dhulka firaashan mid goglan oo jilicsan oo goglan ood wax ku beeran kartaan oon adkeen oon qalafsanayn oon dhaqdhaqaaqaynin ilaa hadduu dhulku dhaqdhaqaaq lahaa mar walba cidi kumay noolaateen marka ilahay wuxuu leeyahy ilaahay waa ka dhulka idinka dhigay firaash mid goglan oo aan adkeen aada u adkeen de oo dhagax ahayn de dhaqdhaqaaqna aan lahayn oo sugan laakiin aayaddu lagama fahmi karo in dhulku yahay dhul fidan oo sida dadka dee aaminsan dad badan inuu yahay dhulku dhul fidsan oonu ahayn dhul sida kubadda oo kale a lagama fahmi karaayo waxaa laga wadaa inuu dhulku yahay dhul jilicsan oo ilaahay ugu talagalay in wax lagu beeran karo lagu dul noolaan karo oo jilicsan alladii allaha jacala lakum idinka dhiga alarda dhulka firaashan mid goglan oo ay noloshu suurtagal ku tahay in lagu dul noolaado wasamaa xagga sarena ilaahay wuxuu idinka dhigay binaan mid dhisan oon iyaduna soo dumayn oo taagan samada